marka hore maan aqoon inanta yar manaan maqal saaka aroortii baan maqlay inay inanta yar la soo xaday ayaan maqlay saaka dabeena waxaan isku eegay wejigii aan arkay iyo maxay heeday in wejiga Facebook ku yaala waan eegay inanta yar bay noqotay waxa magaceedan horta marka hore weydiiyay intaan qadada la siinin waxaan marka wixii igu yiri u soo faraxal inanta yar waan u soo faraxalayay dabeena way sheeg weyday magaceeda markii dambe ee ay intadii dhamaysay ayay sheegtay ugu tir waxa la yiraahdaa Muntaas Maxamed Xasan markaasaan ku walaalahay halkee degantii markaasay igu tiri meel fog baan deganahay markaasaan ku riin in aabaha magacii hooyada magaceed baan ku yiri markaasay igu tiri markaasa hooyada magaceed markaan weydiiyay ayuu xanaaqay wuxuu yiri dabeena inanta riida dabeena waay baan ku dhaw ku haystay inanta yar dabeena saaka aroortii markay ahayd ayaa abtigay ayaa message soo dhacay waxaan ku raabtay message-kaas wuu tusay wuxuu yiri in waa inayro la waayay maxad ka doonsan markaasaan ku yiri inanta yaradan xalay arkay ayay u eeg tahay wuxuu ugu yiri malaha waa iyadii hooyadii baan u sheegay hooyadiina waxay ugu tiri iyadii markaas magacii ay sheegtay Muntaas Maxamed Xasan iyo magacii Facebook ku qornaa ayaa is yeeshay dabeena sidaas ayaan abtigeed oo halkan degan ayaa maqlay dabeena inaan tiradaan anagu ognahay ninkii xaday aanu garanayno oo noola soo maray dabeena markaas ayay tiri markaas ayuu yiri in anagu maxay ahayd uu noo yimi isagii si ay dhidiyo hooyadeed oo wada socda ayaa noo yimi marka ma ku sheegtay tiireed in la soo xaday oo xaafadoodii laga soo xaday iyo in kale mayno ma sheegin inanta yar waxay ahayd ilaa meelaha 5 jir waa hadalka caadiga ah oo ka hadlaysay waxaan hooyadii baa weydiisay waxa ku tiri waa inanta yar ma halkeed ka keentay markaasuu yiri inanta yar waa Oromo hooyadeed ayaan iska soo raacnay gawaadhida jigjiga waayahay waskaga aamustay habeenkii ayaa dabeena aduu habeennimadii ayaa halkan inanta yar la keenay halkan laga cashaysiiyay halkan markii laga cashaysiiyay ayaan waan yaabay dabeena markaas ayaan weydiiyay markaas aan ku yiri hooyo inanta yar waa halkan laga cashaysiinay markaas ay tiri in mala inanta yar soo xaday dabeena saaka aroortii ayaan dareenkaasina uu nagalay hooyo magacaaga ku bilow وهاجك داود يلا وحنا كوسجنا هذا مين أنا كفجنا فافك هراء حرونت الدم باريستا سومالان وحجار وده هالكان كانين لجو ساق قبتي إن أنت أيار وافر لا تنكي ساعة وجود بيه لقى بعفني مجرد هرجيس إن وحنا الصدا كره كوسجنا فافك هراء حرونتا إن دديو تراب بدن أو يمدو كورجل كحالة وحنا حسيد مدن إن تلياشة لامها بنجا سومالان أي جود هانتد هالكان كوسجنا جارهان تليا عندما دبولس كسومالان إن قار كم ده إن ehelka inanta laga xaday oo telefishinka Sim News la hadlay ayaa ka faahfaahin ka bixiyay habka loo soo qabtay ninkaasi waxaana intii si raaciyeen in ninka la qabtay uu sheegay inay yihiin tiradada oo ka ganacsada arrimaha la xiriira xadida caruurta waxaana la sheegay in ninkaasi uu sheegay inay yihiin dad ka badan 20 qof bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Yuusuf Ali Saciid Diiriye inanta yar ee la qaatay adeer ruma waxa dhacday xalay saqdii dhexe in loo yeeray dabadeedna lagu meel guri jaarka halkaas aynan tiireed lagu hayaa kadibna aanu meeshii isweer ka qabanaanu haynay xaladna halka waagu noogu bariyay wax natiijanaanu ka weynay saaka markii aanu soo baxnay ayaa la yiri nan tiireed State House-ka lagu hayaa xaqii State House-ka aanu soo kacnay kadib waxaana loo soo sheegay nan tiireed in gurigii nin Oromo oo gacanta ayaa u keenay waanu yaacnay gurigii baanu tagnay ninkii inaan tiirado aan isku qabanay saldhigaanu geynay waxaana nuu soo gudbinay xirada CID-da dhammaan dadweynaha Soomaaliland ama shacabka oo dhan waxaan u sheegaynaa inaanu inantayadii yareed helnay ducadii iyo dadkii noo soo duceeyay masaajidadiina looga soo duceeyayna ilaahay dartii baan inantayadii yareed u helnay marka lagu qabto ninkii xaday baa soo qofka waa ninkii xaday laftiisii waa Orom isaga qirtay waxaan u sheegay inay ka badan yihiin intan joogta 10 qof oo kale uu sheego 10 kuba State House-ka ay ku nool yihiin oo xaday dadku noo sheegay waxa weeyaan dad badan oo State House-ka jooga xalay toole waxana loo sheegay inta in State House-ta lagu hayay quraacdii meel laga quraacsiiyay laga qadaysiiyay laga cashaysiiyay saaka laga soo quraaciyay saakana gurigii kale halka agteeda la keeno inanta yar loo soo dhaweeyo inanta yar waa tan xirada CID-da ku jirta wayna caafimaad qabtaa
daweyna caafimaad qabtaa xiradan isagu ma iska soo celiyay maxaa tiri isagu ma iska soo celiyay maye isagoo gacanta jiidayo isle meeshii ku tuur ayaa la helo la qabtay aad ma maasan biriishka istaad hooska inanta meherada dhinacan kaga haysata oo farxaan la yidhaa howlgalka ugu weyn inantaasaa geysatay kadib waxay noo sheegtay inanteer inuu ninkani watay uu ka cashaysiiyey halkan markay saa nuugu sheegtay uu ka cashaysiiyey kadib waxaanu ku ninkii maad garanaysaa kadib ninkii way sheegtay saambisaha qolada sameeyaa weeyaan bay nagu tiri guri bayna geysay markaa axmed xaashi oday soo gurmays gurigiisa guryaha ka dambeeya ayayna geysay dumar baa markaa guriga jooga waxay tiri guriga halay halkanaa la keenay markii la keenay inanta yar halkanaa uu ninku la joogay uu watay xataa suuliga markuu gelaya uu la gelayay bay tiri dumarkii markay sidii noogu warrameen waanu soo baxnoo CID-da ayaanu la soo hadalnay inan kaloo tixraac loo sameeyo istaad hooska ku haysta dhuxul oo qoladan jareerkaana dabeetana kiina waa lanoo sheegay kiina ina naasir nuux xuseen mataale idhaa baan ag dhigay ninkiina dabeetana waanu soo qabanay markan halkiis ku nimid ninkii wuxuu noo sheegay dabeetana ninka laftarkiisii ku kalaa dabeetana gurigii baanu dib haddana ugu soo noqonay hore ay gabadhu markaanu kii soo qabannay dhuxusha ayaa ka dhuxusha intaanaa gurigiina keenin buu wuxuu nagey gurigu deganaa oo istaad hooska dhexdiisa gurigii oo la xidhay oo ciyaalkii uu lagala qaxay ayaanu tagnay jaararkaanu weydiinay waxay noo sheegeen inay saaka gurigan laga kaxaysta ciyaalkii wixii ay ka tageen kadib waxaanu ka soo noqonnay gurigii axmed xaashi oday ka dambeeyey gabadhii baanu waraysanay nin kaloo jareeraa noo yimid ninkii baa dabeetana markuu saa soo galay ayuu yeedhay kii aanu sidnay maxbuuska dabeetana wuxuu garaacay telefoon markuu garaacay baanu sheegan ku lambarkaasuu garaacaya waa ninkii waanu qabannay telefoonkiina waanu soo qabannay kadib ninkii wuxuu tegey xeedho halkii inanta yar meesheedii aaggii isagoo inanta yaree tunka saa ugu sita oo kayn ku sida ayay ciyaal qabteen halkanaa looga sheegay dabeetana sidii baanu ku tagnay annagoo gaadhi dhanoo halkan ciidanka saidhida ciidankaa waxaa naga sii horreeyey aadanshiine ciidankii aadanshiine isagoo markaa gacanta ku qabtay oo ay wadaan ayaanu tagnay ninkii ma la jirdilay qaar wararka qaar ninka wax jirdila mee waxba kama muuqda waa la hayaa ninku halkaa burooni ku leey waa nin madow ilaa imika qiyaastii 5 nin baa la hayaa 100 ninna waanu nahay buuri waanu farbadanahay buuri markaa oo ka ganacsadayeen carruur waxaan haa markaa waa la hayaa baaristana koo dhicmayna ciidankeeni baa gacanta ku jira dhankooda qaar ka mid ah dadyoogii iskugu yimid goobtan ayaa telefishinka Samiis la wadaagay dareenkooda ku aadan bal dhacdadan falkan dhacay horta waa ceeb waxa adduunka lagu arka maaha ilmo nool oo habeen balukaadi ilmo nool oo inta jingadoodii gurigoodii la jeexay lagala baxay te horta waa arrin inagu cusub te waxaan leeyahay anigu horta ilaahay baa mahad leh ilaaha ilmaha yar gacantii waalidiinteeda ku soo celiyo gurigoodii baa horta mahad iska leh khaa'inimo iyo daalinimo meesha ka dhacday dawladdana waxaan u sheegayaa dadka waxa sameynaya ee gudaheena ku nool maanta uun maahe waxyaabo hore oo qarsoon ayaa jiraan ku leeyahay maamo ilaahayna baa yaa ilaahay baan mahad celinaynaa daalimiinta ilaahay baa naga qaban ilaahay baa naga kaxayn waxaanu dal iyo dawlad iyo madaxweynaha ka codsanaynaa dadka in la naga raafo wadankoodii la naga celiyo oo dadkaasi annaguna aanu indho dheer u yeelanno shicibkuna iyaga CID dee aan iska ilaalino oo taan waliba dee ilmaheedii iyo qoyskeedii wixii jaarkeeda yaalay iyo wixii ma garanaysaa ayay dee iyo cidda dee guriga laga kireynaya iyo cidday ka socoto inaan aqoon la'aan waxba laga kireyn waxaanu dawladda iyo shicibkaba ka codsanaynaa dadka waxaa sameynaya in gacan bira lagu qabto wadankana laga raafo haddii la haydha dalka iyo dadka iyo dadweynaha waxaan leeyahay iyo dawladdaba arrinkaa hoosa loo dhaadhiciyo oo dalku ma nabad qabee dalkan ha la ilaaliyo oo dadweynuhu ka kaca fadhiga dalka ka kaca fadhiga oo carruurihiinna iyo duwadkiinna iyo dalkiinna iyo dantiinna ilaashada falkan waa fal xun aad iyo aad buu fool xun yahay fal laga naxo laga argagaxa weeyaan de ilmaha aqalkoodii lagala baxay waa min subxaan allah waxaan dawladda ka codsanaynaa waxaa sameeyay falkaa la socda ayaa ilaahay baa boqor horta ilaaha caalamka ah baa aynu barinaa goor walba ilaahay soo celiyey ee dadka awlaaddoodii u soo celiyey ayaa horta mahadda iska leh waxa kale dadka waxaa samaynaya aqalladii laga baxayo oo gacan bira in lagu qabto dawladdu ka qabato